aan ka warbixiyo foolkii xalay dabaysha lahaa ee daay maqribkii horta alxamdulilah cid waxa uu ku yeelay ma jirto laakiin khasaare fara badan ayuu geystay haddii warbixin oo kooban ka bixiyo waxa uu geystay 32 meelood oo guri iyo deyr iyo sandaqada waxna uu dumiyay waxna jiingada ku qaaday waxa kale oo uu dumiyay dhowr iyo 20 guryahan leeyahay barakacayaasha guryahan baybayada dhowr iyo 20 guri ayayna dumiyay alxamdulilah cid waxba ku noqon goobaha laanaha dawladda wax noqday waxa kamid ah saddexdii madrasada magaalada waxa kamid ah masaajidkii kulliga islaamka lagu qaban jiray waxa kamid ah kastamka waxa kamid ah dawladda hoose waxa kamid ah gobolka hawd xarunta gobolka hawd waxa kamid ah sariibada waxa kamid ah alaaminta waxa kamid ah dugsiga hoose dhexe waxa kamid ah makiin haruudi alaamintu lahayd waa 10 goobood laanaha dawladdu wax noqotay dadka shacabkana waxa weeyaan 22 guri iyo dawladda iyo 22 baybayadii ay dad galiyeen waxa kale ka sheegaya waxa la leeyahay wixii banka guri yaalay isla u dumiyay dadkii shalay xalay dibadda wada fadhiyeen waxa kale jira roob ka horeeyay dad xoolo kale ayo ay dhahaa oo ayaga axbaysan halkan inuu ka taaganahay waxa deganaa reerka haroosa waxa daanin macalinaha oo dugsiga hoose dhexe ee magaalada wax ka dhiga oo kuwa banaanka fadhiya sandaqadaha yaryar baa wuxuu yahaa ilaa xalay tuuyo fadhi bay haayeen waxa weeye waa kuwa ilaa imika halka tuwan halkani waxa weeye madarisadii tafsiirka quraanka ee Sheekh Dirir waxa weeye jingadii uu ka qaaday oo waa taa la arkayo halka waxa ka dumay iyadana sandaqad kale oo iyaga waxa ku dhaawacmay 2 qof xalida Hargeysa loo qaaday waxa weeye kol hadaan dhibaatadu ay maalun tahay oo inna faahayn alxamdulilah waa wax laga soo kaban karo duufaan watada ka daay shalay to gobolka hawd laba degmo oo gobolka kamid ah xoog wuxuu yeelay degmada Balgubadle ee magaalada madaxda u ah gobolka hawd iyo degmada Gumburaha labada degmaba xoog wuxuu yeelay roobkaasi waxaan baa u dirayaa wasaaradaha ay